shirkadda xawilaadaha casriga ah ee Dahabshiil Group ayaa deeq dhan $150,000 ku wareejisay guddiga loo xil saaray fatahaadda webiga Shabeelle oo ku sameeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda Dahabshiil Group waxaan halkan tacsi tiiraanyale uga direynaa dadkii ku geeriyooday daadadkii ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxa kale oo aan la damqanaynaa dadka ku dhibaataysan meelaha fatahaaduhu ay ka dhaceen. waxaan ka xunnahay runtii dadka ku barakacay ku qaxay dhibaatada badan ee ay ka soo gaadhay. waxa aan shirkad ahaan halkan dadweynaha Soomaaliyeed hortooda aan maanta ku cadeynaynaa haddaan nahay shirkadda Dahabshiil in aan ku bixinayno wejiga koobaad lacag dhan $150,000 isla maantabana aan lacagtaas la gaarsiin doono dadkii u baahnaa. waxa kale oo aan halkan ka xusaynaa in runtii masiibada dhacday ay soo noqnoqotay. haddii ay dhacdo in loo diyaar garoobo dal ahaan in aan ka qayb qaadan doono masiibooyinkaas soo noqnoqonaya sidii aanay u soo noqnoqon lahayn iyo wixii baahiyaha noocaasa iyo weliba inaanu ka qayb qaadanno horkacno activity-ga iyo shaqooyinka dambe ee soo bixi doona. waxa kale oo aan rabaa inaan halkan ka xuso haddaan nahay shirkadda Somtel oo ah shirkad runtii muwaadin ah local ah oo ay hanti ku leeyihiin ama shareholders ay ka yihiin dad ka badan dad ku dhow 2,000 oo qof. waxaanu cadeynaynaa inaanu kala qayb qaadanayno dhib kasta oo dadweynaha ay u adeegto ku yimaada. horena waan u samayn jirnay waananu sii wadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. guud ahaanna Ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibooyinka caamka ah ee inagu dhacaya in Ilaahay maaragtay inaga dulqaado. waxa kale oo shirkadda Dahabshiil Group oo maaragtay aan ugu baaqaynaa dadweynaha Soomaaliyeed in laga qayb qaato masiibada dhacday. $1 waa sadaqad, 2 waa sadaqad. waxaan hawshaas u furnay account aanu ka furnay maaragtay bangiga Dahabshiil. waxa kale oo u sameynay lambar dahab ah oo lacagta aad ku soo tuuri kartaan. aad baan u baraarujinaynaa arrintaas. accountkaas iyo lambarka dahabkuba waxa ay ka muuqdaan shaashadda. intaasaan ku soo koobayaa press conference-gayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. ilaahay baa mahadsan. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa tiimka Dahabshiil Group oo hogaaminaya Cabdiraxmaan Jeermaanka iyo Cabdixafiid. aadaan uga mahadcelinaynaa juhdiga iyo go'aanka iyo hantida ay ugu deeqeen dadka ehelka iyo walaalaha iyo tacsida iyo tiiraanyada ay la qaybsadeen. na ilaa shalayba waa fadhinay guddigeennii waxaan maaragtay maanta nagu soo biiray. waxaan leenahay horta marka koowaad in Allah barakeeyo, marka labaadna aad ugu mahadsantihiin, marka saddexaadna insha allahu meesha ay wax marahayaan aanu ka wada qabsan doonaa sidii loo maamulahayo iyo meesha ay marahayaan iyo waxaasoo dhan tiimkaas oo Dahabshiil Group ay ka mid tahay baan insha allah iskula biiri doonaa haddii alla yidhaahdo. waxaan leenahay marka wixiinan Allah barakeeyo, xoolahana Allah ku barakeeyo, dadka iyo madaxdana Allah ku dhowro. bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim. alxamdulillaah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. intaas kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iska hadal la koobi karin. inta waxaan ku faraxsanahay maanta in maaragtay ballanqaad fiican iyo wax fiican weli hore u dhaca ay ballanqaadno shirkadda Dahabshiil Group. runtii lagu yaqaano inay kaga jirto kaalmahaas kaga jirto waxtarka iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliyeed oo lacag $150,000 ah wejiga koobaad ay ballanqaadeen insha Allah tacaala. marka waxaan leenahay Allah barakeeyo maalkooda iyo ahalkooda iyo ganacsigoodaba ay meesha ka soo baxsheen ka qeyb Allah jaliyo subxaanahu wa tacaala. wanaagga ay hayaana Allah u siyaadiyo awoodooda iyo muddo maaragtay u taraya ala kobciyo. jazakum Allah khayran. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
waxaan halkaan ugu mahad celinaynaa annagoo ah guddiga wax ka qabashada fatahaadaha dalka ka dhacay gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Bakool iyo gobolka Gedo intaba ka wada dhacay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa una ducaynaynaa shirkadda weyn gruubka maaragtay dahabshiil group oo runtii yani kaalin hormuudnimo iyo maaragtay khayr oo horumarid weligeed lagu yaqiinay lacag aad u fara badan oo maasha Allah aad loogu farxay $150,000 oo dufco ah oo hal mar ah ay dhiibtay iyo khadamaad kaleeto oo dokumentiyadii iyo waxyaabihii tasiilaadka iyo boorarka iyo howlo kaleeto iyaduna maaragtay idaafi ah oo dheeraada oo aan lacagtaas ku jirin oo ay u haysto guddiga iyo maaragtay xamlada wax ka qabashada iyo maaragtay gargaarka ama gurmadka fatahaadaha dahabshiil ma aha markii ugu horeysay iyo markii labaad iyo markii tobanaad midna waxa weeyaan maaragtay weligeed waxay la nooleed dhibaatooyinka dalka ka dhaca inay ay horkacdo iyadoo wax ka qabashadooda iyo gacansiinta dadka dhibaataysan lacag aad u fara badan ay weligeed ku bixinaysay oo $100,000 sida haddaba ay u bixinaysay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa aad baan ugu ducaynaynaa milkiilaha weyn xaaji maxamed saciid iyo dhammaan tiimka la shaqeeya waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa walaalkeen xasan cawad oo asaguna xasan cabdi cawad oo ah maaragtay mas-uulka hadda bangiga iyo shirkadda iyo dhammaan waaxeeda kala duwan gacanta ku haya oo nin casiiz ah oo dadkuna aad u jecel yahay la iskula raacay oo weliba laga dalbaday inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga inkastoo maaragtay cudurdaar ka muujiyay haddana waxaa noo yimid wiilkii gacanyarihiisii cabdixafiid oo nala joogo shaqadin la wada xasanna mar walba waxaan ku adkaysanaynaa inuu noqdo guddoonka oo sare oo ka mid ahaado oo maaragtay runtii sheekh bashiir axmed salaad iyo axmed sacuudi oo saddexeeyo marka aad baan ugu mahad celinaynaa waa nin odaya oo aad u culus oo dadku aad u jecel yihiin oo shacabka iyo dhammaan mas-uuliyiinta dalkan iyo ummadda iyo culimmadu ay ku wada kalsoon tahay shirkadaas oo shirkad khayrka horumarta waaye sida ugu horumar jirtay yani ugu dadaal jirtay wayna haddana waxay u tahay hoggaanka ugu haysaa hawshaan iyada ah marka jazaahumullahu khayr wabaarak fiihim ilaahay waxay bixiyeen noo barakeeyo waxay reebteenna loo barakeeyo xaajigana cumrigiisa allah noo dheereeya isagoo caafimaad qaba howlihiisa iyo shirkadihiisa oo dhanna runtii Soomaali waa u duceysay ma aan kaliya wax ka qabadka dhibaatooyinkii horumarka dalka xataa iyo maaragtay camiraadda dalka iyo dhaqaajinta nidaamka casriga ee bangiyada oo aad u horeeya iyo akhlaaqda wanaagsan oo la tacaamulka dadka maaragtay customerska iyo wax badan bay caalamka ku sidaan allah barakeeyo aad maasantiin mabruuq ayaan leenahay jazakumullahu khayr ayaan leenahay majmuucada ama group dahabshiil group iyo xaaji maxamed saciid iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha iyo howlwadeenada iyo saaxiibada kamanigaas weyn ama kamaniyadaas weyn isu tagay leeyihiin dahabshiil hoggaamiye barakallahu maxamed maax telefishinka universal hargeysa